education platform. الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. الله سبحانه وتعالى أيام هذا السكالة وحسا كله أو كمية حسوين كيني مادة أفكار الصومالية فصل ككوات دوكسيغا السريع marka maanta waxaan ka bilaabaynaa casharka 6 iyo 10 ay xisadanu ay nooga bilaabaneen waxay la macno tahay oo ay isku qaab yihiin casharkii hore marka laga sheekeynayo waayaha qofka taariikhda qofka CV-ga maaragtay qofka iyo taariikhdiisa marka aad wax ka qoraydo nidaamyadii iyo habkii aad raacayday marka tii hore waxaan aad ugu soo falanqeynay Sayid Maxamed Cabdalla Xasan iyo taariikhdiisii iyo sida aan u kala qaybinay iyo tuducyada noocyada ay ahaayeen kana waxa weeye sidii oo kaleeto isagana nin kale oo abwaana Maxamed Gacal Xaayow leeyahay ayaan uga hadlaynaa iyo isagana bal guurowgiisii sayidka gabay maaragtay ayuu isagoo caan ku ahaa ninkana guurow iyo bal taariikhdiisii iyo su'aalo maaragtay laga shaqeynayana iyagana way ku jiraan marka Ilaahay subxaanahu wa ta'ala waxaan ka baryaynaa inuu noo sahlo oo aan fahamno si fiican inaan u fahamno waayahay marka hadda casharkeena ayaan bilaabanaynaa waayahay waxaan ka hadlaynaa ninka la yiraahdo Maxamed Gacal Xaayow inaad si fiican aad u maqasheen ayaa maaragtay laga yaabaa taariikhdiisa wuxuu caan ku ahaa waxyaalo fara badan oo maansada maaragtay kamid ah gabayo iyo guurooyo iyo waan arki doonaa ardaygu casharka si wanaagsan u dhammaystiran u fahma waxa uu awood u yeelan doonaa in uu saddexdan arrimood u fahmo cashar walba ujeedo ayuu leeyahay soo uma jeedid cashar walba marka aan bilaabayno ujeedooyin ayaa maaragtay laga leeyahay marka adiga waxa laga rabaa ujeedooyinkaas inaad xaqiijido inaad maaragtay aad fahamto cashar walba ugu yaraan 90% inaad fahamto ujeedadii iyo wixii laga lahay marka waxaad noqonaysaa qof maaragtay yaqaan af Soomaali xirfadaysan oo aad iyo aad munaasab u ah marka waxa laga rabaa inuu fahmo sida loo qoro waayaha qofka ee xogta la isugu xijiyo xogta qofka yani akhbaarta laga hayo sida la isugu xijiyo oo loo habeeyo sida loo sheego diricnimadii abwaanka iyo xaaladihii kala duwanaa ya ee maaragtay uu soo maray diricnimadu maxaa waa kartida iyo raganimadii Soomaali maxay dhahan hebel waa nin maaragtay oo dirac ah soo ma dhahan yani waxa la wadaa qof oo karti badan ayaa laga wada dadka waxa loo qaybiyaa dirac iyo doqon nin dirac ah iyo nin doqon ah oo waxba maaragtay aan qaban karin haya waxa kale ujeedadu tahay inuu ardaygu garto waxyaabo tagta bulshada ah waxyaabo tagta bulshada taariikhdeedii hore laga wadaa tagtadu markaan ficilada soo maraynay tagta iyo timaado iyo joogta soo maysan noo ahayn marka tagta bulsho waxaa la dhahaa taariikhdii hore ee bulshadu ay maaragtay ay soo martay yaa waxa weeye ad-duruuf al-maadiya taariikhihii tegey oo dadku ay soo mareen waa ka marka waxaa la rabaa inuu garto tagta bulshada oo laga dhex fahmayo waayaha noloshiisa waxqabadka koowaad marka fiiri waxa aan akhrinayaa sheekada hoose kana war celinayaa weydiimaheeda sheekadaan akhrina su'aalo oo fudud aad u fududna oo hore ka garan kartana way ka soo dhex baxayaan waaba waxa daris ahaa hadda si fiican u fiirsayaa ujeedda laga leeyahay casharka waxbaa lagu matalaa dadka qaar kamida ayaa lagu matalayaa marka waxaa lagu yiri waaba yani waqti horeba waaba waxay la macno tahay beri baa waxaa jiray ya beri hore waxaa jiray marka lagu dhahayo iyo waaba marka lagu dhahayo isku mid waay marka waaba waxaa daris ahaa fayoobi iyo cudur fayoobidu maxaa waaye caafimaad iyo cudur ayaa daris ahaayeen fayoobi waxa ay dadka ka celin jirtay oo ka horeyn jirtay maaragtay cudurka waa ka fayoobi waxa ay dadka ka celin jirtay oo ka horeyn jirtay cuduraa meesha ka maqan jumlada wax yar laga iloobay markii la qorayay maxaa yeelay inta waa joogsi mujeedido halkan joogsi waaye meeshan waxa waa jumlo cusub waaye jumlada cusubna maxaa la rabaa inay noqoto macno dhammaystiran inay wadato fayoobi waxa ay dadka ka celin jirtay oo ka horeyn jirtay yani cudurkay ka difaaci jirtay maalin maalmaha kamid ah baa fayoobi socdaashay
fayoobidii way socdaashay socdaal maxaa waay safar ayay aaday intii ay socdaalka ku maqneed baa cudurkii dad iyo duunyo dhibaato laxaad leh u geystay dhibaato culus ayuu maaragtay oo u geystay berigii dambe baa fayoobi u timid cudur oo ku tiri fayoobi waa soo laabatay cudurkii ayay u imaatay waxay ku tiri intii aan maqnaa baad dhibaato weyn u geysatay dadkii iyo duunyadiiba laakiin hadda waan imi oo dadkii baan u soo laabtay ee iska tag oo dhibaato dambe ha u geysan dadka iyo duunyada cudurow saasay dhacday haye cudurkii waxa uu yidhi tegi maayo meesha xigmadda ee loo socday meeshaan waaya cudurkii waxa uu yidhi tegi maayo inta ay jiraan dad aan ku hoyan karo oogadooda oogadu waxa waa jirka dad aan ku hoyan karo oo aan ku dhex jiri karo oogadooda inta ay jiraan maaragtay ma aan tegayo oogadooda yani waa jirkooda afkooda farahooda intaas dad aan ku hoyan karo inta ay jiraan mana maaragtay ma tegayo inta ay jiraan daawo dhacday dhiroole dhir aanu aqoon gadaya dadka dhirta gada markin oo dhaho maxaa la yidhaha daawo dhaqameedka iyo aan samaynayna iyaguna naftirkooda dhibaatooyin bay keenaan dhir aysan aqoon u lahayn oo cilmiyan aysan aqoonin oo baaritaan aynan ku samaynin aynan ka gungaarin ayay dadka siiyaan marka cudurkii wuxuu yidhi ma aan tegayo kow inta ay jiraan dad aan oogadooda afkooda farahooda daawo dhacday dhiroole dhir aanu aqoon gadaya dhakhtar mindidiisa afaystay dhakhtar un bis inuu wax qalo raba oo ciduu axsaan u samaynayo aynan jirinin haye faya dhowr yani waa caafimaad dhowr faya dhowr lacag ka fekeraya caafimaad iyo dhakhtar oo lacag keliya ka fekeraya oo aan dadnimo ka fekeraynin iyo wixii lamida intaasu inta ay jiraan wuxuu yidhi fayoobiyey anigoo cudur ah ma tegaayo ma baxaayo kolka doodii lagu heshiin waayey waxaa dhex martay colaad daran oo aanay weligood heshiinayn marka waa kaasa waxaa dhacday colaad daran oo aanay weligood heshiinayn ayaa marka waxay dhex martay cudurkii iyo fayoobidii waayahay kow cudurku maxaa uu ugala jeedaa dad aan oogadooda ku hoyan karo afkooda ku hoyan karo farahooda ku noolaan karo daawo dhacday dhiroole dhir aanu aqoon maaragtay gadaya dhakhtar mididiisa afaystay fayadhowr lacag maaragtay ka fekeraya oo aan dadnimo maaragtay ka fekeraynin iyo wixii lamid ah maxaa maaragtay cudurku waxaas oo ula jeedaa waa kaa haye muxuu ula jeedaa sharaxaad dhammaystiran bal maaragtay ka bixi waxa uu ula jeedo intaasoo dhan waxa uu ula jeedo intaasoo dhan marka aad fiirido waxay isugu imaanayaan laba wax keliya waxay isugu imaanayaan nadaafad darro cudur maaragtay kusoo dugaalaya nadaafad darro waa kaa qof oogadiisa jirkiisa aysan nadiif ahayn afkiisa uusan nadiif ahayn farihiisa uusan nadiif ahayn mid daawo dhacday iibinaya mid dhir uusan aqoonin maaragtay iibinaya marka nadaafad darro iyo dad cilmi aysan lahayn sheeganaya iyo maxaa la yidhaahdaa kuwo dhakhaatiira oo cilmi leh laakiin damiirkooda uu liito oo lacag bis ka fekeraya aan dadkii ka fekeraynin marka cudurku waa sababta ou yidhi ma u tegayo bulshada intaasu ay ku badan yihiinna cuduraduna way ku badnaanayaan labo cudurku maxaa uu ugala jeedaa dad aan farahooda iyo afkooda ku noolaan karo muxuu ka wadaa wuxuu ka wadaa dad oo nadaafadoodu ay liidato waa kaa horey ayaan waxaan u soo marnay maahmaah maaragtay sidaanoo kale u hadlayday maahmaadu maxay ahayd waxay ahayd dhar la-aan waa dan qofku haddii dhar badan uusan haysanin yani waa dan iyo duruuf laakiin uskagu waa dadnimo xumo wasaq haddaad aragto iyo nadaafad darro waa qof dadnimo xumo qaba marka saasaa loola jeedi ereyga cudur maxaa uu sheekada u taagan yahay oo uu jilayaa ereyga cudur ee sheekadan ku jira muxuu jilayaa wuxuu jilayaa nadaafad darrada ereyga fayoobi maxaa uu sheekada u taagan yahay
oo uu jilayaa isna wuxuu maaragtay uu jilayaa nadaafadda iyo fayadhowrka. sheeg 3 dullin oo ilima aragta ah oo dadka cudurrada u keena. yacni 3 maaragtay dullin oo ilima aragta ah yacni aan la arkaynin oo dadka cudurrada u keena, kuwaasna waxaa lagu dhahay sheeg. si fudud maaragtay inaad u fahmi karto kuwaas ayaan ka mid ah. waxaa ugu caansan noocyo badan oo maaragtay ka mid a gooryaanada, gaar ahaan gooryaanada noocyada ilma aragtada ah. waxaa ka mid a bakteriyooyin fara badan oo isha aan lagu arkaynin, mikroskoobka keliya iyo weynoosooyinka keliya lagu arki karo, oo maxaa la yidhaahdaa jirka bini aadanka gala oo dhibaatooyin u geysta. qaar cuntooyinka ku dhex jira, qaar hawada maaragtay ku dhex jira, qaar meelaha nadaafad darrada maxaa la yidhahdaa ka jira. kuwaas oo dhan ayaa ka mid ah. waa wax aad taqaan. waaya maxamed gacal xaayow marka sidii hadaadata oo kale ayaana lakaga sheekaynaya sidii sayidka xisadii hore. allah ha u naxariistee abwaanka maxamed gacal xaayow waxa uu ku dhashay gobolka banaadir. gobolkan banaadir ayuu maaragtay uu ku dhashay. waa kaa sidoo kale waxa uu ku soo barbaaray degmada cadale. degmada cadale oo gobolka shabeellada dhexe ka tirsan. degmada cadale waxa ay ka mid tahay goobaha caanka ku ah kasoo ifbixidda suugaanta. degmada la yidhaahdo cadale ee aada maqasheen waa dhulka soomaalida goobaha aada caanka uga ah suugaan fara badan inay maaragtay ay kasoo ifbaxday. waa kaa inay kasoo ifbaxday. abwaanku waxa uu ku geeriyooday muqdisho, gaar ahaan degmada wadajir. kolka bishu ahayd yacni maajo 16 sanadkii 2016 waqti dhow bay ahayd. allah u naxariisto. waqtigaas ayuuna maaragtay geeriyooday. marka nin dee halkan aad caan uga ah, qof aan aqoon uu yaryahay ayuu ahaay waaye. maxamed gacal xaayow waxa uu ka geeriyooday hal xaas iyo dhowr caruur ah. fiiri waxa waaye waa markii qofka waayihiisa laga sheekaynaa, macluumaadkii hadaatana la soo siiyey markii waayaha laga sheekaynayo, dhalashadiisii, qoyskiisii, shaqadiisii, wixii uu maaragtay uu qabtay, sow ma aysan hayn tii waaye. maxamed gacal xaayow waxa uu ka geeriyooday hal xaas iyo dhowr caruur ah oo qaar ku nool yihiin magaalada muqdisho, qaar kalena waxa ay ku nool yihiin dalka dibadiisa. intii uu yaraay waxa uu ku barbaaray oo bartay xirfadda reerkoodu ku shaqaysan jireen. xirfad ama shaqo uu ka dhaxlay aabbayaalkiis awowayaalkiis, taas ayuu ku caanbaxay. haye xirfadaha kale ee uu lahaa waxaa ka mid ahaa wadidda baabuurta oo uu ku shaqaysan jiray gaadiidka dadweynaha BL-ka ayuu ninkan uu ka shaqayn jiray. way dadkii xilliyo hore maaragtay magaaladan joogi jiray way garanayeen. waa kaa laakiin kolkii uu indhobeelay 1970kii waa uu ka fariistay wadidii gaadiidka. marka taariikhdiisii yaa laga sheekaynaya, so uma jeedi taariikhdiisii sida loo falanqaynayo. fiiri maxamed gacal xaayow waxa uu ku soo barbaaray degmada cadale ee gobolka shabeellada dhexe. halkaas ayuu ku soo qaatay waxbarashadiisii. abwaanka waxa uu ku soo dhex barbaaray bulsho ay ku jiraan dad badan oo tixyahano ah. tixda soo ma taqaanid? hadalku soo nooguma qaybsanayn tix iyo tiraab. marka dad badan oo tixyahano ah, yacni gabayahano ah, gabayo iyo guurow iyo arrimahaasoo dhan yaqaan ayuu ku soo dhex barbaaray. deegaanka cadale ilaa aadan yabaal, dhulkaas la dhaho cadale maaragtay aadan yabaal, waxaa lagu yaqaan in ay yihiin bulsho rag iyo dumar maaragtay gabya. bulsho rag iyo dumarba gabyaya inay yihiin ayaa deegaankaas lagu yaqaanay. waxaa lagu yaqaan in ay yihiin bulsho rag iyo dumar gabya, heesa, buraanbura, shiribka ciyaara. ciyaarta shiribkana waa taqaanaa, oo maansooyahano ah. waa ka oo maansooyahano ah. halkaas buu kala yimid diricnimada
maansada iyo hoobalnimada halkaasuu kala yimid dee diricnimada raganimada iyo maaragtay hoobalnimada meeshaas ayuu kala yimid maxamed gacal xaayow. qofka mar walba waxaa saameyn ku leh dadka uu ku soo dhex karo, dadka uu ku soo dhex karo ama uu la nool yahay qofka saameyn aad iyo aad u weyn ayay ku leeyihiin. qofkii ku soo dhex kora dad aqoon iyo karti iyo cilmi leh isagana waxbuu ka dhexlayaa. dad liita oo aqoon aan lahayn oo akhlaaq fiican aan lahayn waxba aan garanayn qofkii kusoo dhex korana saameyn bay ku yeelanayaan. marka ninkan saas u ahaa. abwaanada deegaanka cadale, deegaankaas cadale abwaanada kale ee ka soo jeeda maxamed gacal xaayow aan ahayn ee suugaanta caanka ku ahaa waxaa ka mid ahaa kuwan ayaa ka mid ahaa. alla raggan baa maaragtay ka mid ahay oo taariikhda soomaalida aad caanka uga ah. waxaa ka mid ahaa ninkii la dhihi jiray sheekh axmed wacdiyow oo dadku u yaqaaneen sheekh axmed gebyow. markiisii hore waxaa la dhihi jiray ninkana sheekh buu ahaa oo diinta aad iyo aad u yaqaan, laakiin dadku markuu wacdinayo wuxuu isticmaali jiray usluubka ah tixda. wuxuu tirin jiray maaragtay gabayo iyo maxaa la yidhaahdaa ayuu tirin jiray. waa kaasa gaar ahaan wuxuu isticmaali jiray nooca la yidhaahdo masafada. marka sheekh axmed gebyow, sheekh axmed wacdiyow gabaygiisa wacdi ayuu ahaa isaga. waxaa kaleeto oo taariikhdiisii ka mid ahaa wuxuu ahaa isagu nin gumaysigii talyaanigu ku soo aaday xilligii uu koonfurta soomaaliya imaaday. marka dadkii aadka uga soo horjeeday ayuu ka mid ahaa. deegaanka cadale iyo aadan yabaal iyo ilaa xaradheere iyo xeebaha oo la dhihi jiray xeebaha banaadir halkaas ayuu caan ka ahaa sheekh axmed wacdiyow oo dadku u yiqiineen sheekh axmed gebyow. dhinac walbana wuu ka hadli jiray diinta iyo gobonnimada ayaana maaragtay ugu wanaagsaneed. weligeed waxaa la dhahay ninkaas taariikhdiisa gabayada wax yar xataa lagama fahmin isaga oo qabiil taageeraya, isaga oo qabiil ama gobol gaara dad taageeraya, laakiin mar kasta akhlaaqda iyo diinta iyo walaalnimada iyo dhaqanka fiican ayuu maaragtay uu caan ku ahaa. wuxuu aad uga gabi jiray cadaaladda, inaan dulmi la samaynin, inaan dulmi la gelin ayuu maaragtay aad uga wacdin jiray oo uga sheekey jiray. ninkaa sheekh axmed gebyow taariikhdiisu aad bay u badan tahay, gabayo badanna wuu leeyahay. diiwaano oo gabayadiisa lagu qorayna maaragtay way jiraan, inaysan aad loo faafin ayaa dhici karto. waa kaa waayahay. gabayadiisa waxaa ka mid ahay cadaaladda markuu ka hadlayay diinta nin aad u yaqaan. wuxuu yidhi masafo waxaa jirta aan ka xasuusto wax yar oo uu lahaa wuxuu yidhi oo haweenka cadaalad ha loo sameeyo ku salaysneed. wuxuu yidhi qashkarisooy iyo naag makhiidaa meherka loo qaybihaya. yacni qashkarisooy naag oo cuntada si fiican aan u kari aqoon iyo naag makhiidaahoo si fiican u taqaan howlahaas oo cuntaday karido dee faraha maaragtay layska qaniinayo. wuxuu yidhi meherka waa loo qaybina, lama dhahayo yidhi tan cunto ma kari taqaan meher fiican lama siinaayo, tan cuntada way kari taqaan waa loo badinaa lama dhahayo. marka beydkaas ayaa ka mid ah. haye waxaa ka mid ahay cali geed seexde ayaa ka mid ahay asna nin la dhihi jiray cabdulla raage oo mar walba aa maqashaan oo isagu qiraya in ay degmada cadale tahay hooyiga ka soo ifbaxa suugaanta. meeshii suugaantuba ay ka soo ifbaxday dhulkan koonfurtan ayuu qirayaa ninkaa. ereyada cabdulla raagaa yidhi waxaa ka mid ahaa markuu ka sheekeynayo wuxuu yidhi curin maanso goob lagu cubtamay carab iyo soomaali caalimkii ka dowlada ahaa cadale loo daaye. wuxuu yidhi meel ay ku tartameen in maanso la curiyo soomaali iyo carab labadoodaba ninkii meesha ugu aqoonta badneed oo looga haray wuxuu yidhi waa bes cadale waa cadale loo daaye. maxamed gacal xaayow waxa uu magaalada muqdisho soo degay 1950kii isagoo yaraantiisii ku caan ahaa aftahanimada maansooyinka kala gedisan. abwaanku waxa uu ku soo biiray hobolada qaranka ee waaberi 1970kii isagoo oo caan ku ahaa curinta iyo tirinta iyo kuluuqaynta guurowga. guurowga ayuu isagoo aad caan ugu ahaa. inta badan waxa ay maansooyinkiisu ka hadlaan nabadda, waxbarashada, horumarka, heshiisiinta dadka, waanada, gubannimada iyo gubaabada dawga saxda ah, wadada saxda ah. haye abwaanku waxa uu isku dayi jiray
inuu fariintiisa u gudbiyo guud ahaan dadweynaha, gaar ahaan indheer garadka, waayeelka, dhallinyarada, siyaasiyiinta, aqoon-yahanada, ciidanka iyo wixii la mid ah. guurowyo badan oo uu beri hore tiriyey waxa aad moodaa in ay maanta cusub yihiin oo warkoodii taagan yahay. guurowyada iyo shiribyada caanka ah ee uu curiyey ama tiriyey waxaa maaragtay waxaa ka mid ah kuwana ka mid ah waa ciwaano guurow oo ciwaankiisu uu yahay yaabka ka heshiiya Soomaaliyey. ciwaankiisu saas waaye, yaabka ka heshiiya Soomaaliyey. marka waa guurow oo goonihiisa u taagan. Soomaaliyey isbarqabo yaa qaladkiina saxa, Soomaaliyey na gaarsii allahayow, farshaxan Afrikay isdoono. kan wuxuu ku saabsan yahay Afrika inay midowdo ayuu rabaa. marka wuxuu leeyahay Afrikay isdoono, dhagax dahab, goob lagu cubtay carab iyo Soomaali, shiribkii eebow nabad, aqoon-yahan xaasid ha u jabin, aqal beena rabbi talo ku filan. kuwaasaa ka mid ahay waxyaalihii uu maaragta curiyey. waxaa ka mid ahaa dhambaalkii nabadda aadan cadde, mid uu uga hadlayey. Mandela, Nelson Mandela uu uga hadlayey. ha idin deeqdo sheekadu, ramadaanka oofiya. kuwaasaa ka mid ahaa. intaas waa kuwa la xasuusan yahay, laakiin maansooyinkiisa wax qalin ama cashar kooban lagu soo koobi karo ma aha. maxamed gacal xaayo waxa uu ahaa haliyey Soomaaliyeed oo dadka maaragtay kol la arag waxaa la yidhaahdaa qofka naadirka ah oo isagoo kale aan la arkin. waxaa la yidhaahdaa muxuu yidhi nebiga sallallahu alayhi wasallam, wuxuu yidhi 100kii sanama diinta waxaa u soo baxaya qof oo mujadid oo diinta cusboonaysiinaya. kol la arag qarnigiiba waxaa soo baxa qof qiimo leh, bini aadan markii ay meel degan yihiin. marka wuxuu ahaa kol la aragaa la yidhaha marka af Soomaaliya. hebel markaad oo lagu yidhaahdo hebel wuxuu ahaa kol la arag, yacni hal mar uun baa la arkaa, ma badna. noociisa oo kale kol kasta lama arko, laakiin dadka diricnimadiisa yacni kartidiisa oo kale leh wax yar baa la arkaa ama laga dhex helaa bulshooyinka carro edeg. waa adduunka oo dhan carro edeg, marar badanaa soo marnay ereygaas. kuwa aan calaamadayn oo dhan kuwa adag waaya. abwaanku waxa uu caan ku ahaa ku gabyidda dhammaan xarfaha afka Soomaaliga, sida xarafka ya-da. waxaa la yidhaahdaa xaraf lagu gabyo oo lagu socodsiiyo gabayga ya-da ayaa ugu adag. waa kaa oo ay fara ku tiris tahay in abwaanadu ka gabyaan. maasooyinkiisu waxa ay ahaayeen kuwo golo kafuul ah oo aan xanaf lahayn. xanaf waxa waaye aan wax eeda iyo wax dhibaata oo la dhibsanayo dhamma aysan lahayn, wanaag ayay ahaayeen bis. sidoo kale ma aanay ahayn kuwo lasoo diyaariyo ama lasoo abaabulo, taas buuba u jeedin jiray. abwaanku wuxuu ahaa geesi aan cidna ka gamban, abaabulo bulsho maxaa la yidhaahdaa ayuu ahaay. hawaalo warsame saadiya waxaa soo socda. wuxuu ahay nin saadaaliya. wuxuu ahay nin saadaaliya. meelahan in oo khaladaad ku jiraana laga yaabaa oo xagga qoraalka. wuxuu ahay nin saadaaliya waxyaalaha soo socda maxaa la yidhaahdaa oo ku talax tegey aqoonta bulshadiisa. aqoonta bulshadiisana wuu ku talax tegey si fiican ayuu dadka Soomaaliyeed oo u yaqiin, macnaha oo u daraaseeyey. waa kaa haye waxqabadka labaad fiiri. aniga oo adeegsanaya, marka waa fudayd, si fiican u fiirso. aniga oo adeegsanaya waay arnimada aan u leeyahay afka Soomaaliga, waxa aan ka war celinayaa weydiimaha casharka la iga weydiiyey ee soo socda. ayaan maaragtay maxaa la yidhaahdaa aan ka war celinayaa. marka qaar baa laga yaabaa inay meesha ka maqan yihiin. adigoo soo xiganaya habraaca loo qoro waayaha qofka, waxa aad hubisaa in waayaha maxamed gacal xaayow oo u qoran yahay sidii saxda ahayd. maxaad ka dareemaysaa bal sayid maxamed markaan kasoo hadlaynay haddaad barbar dhigto iyo isaga marka aad ka hadlayday, bal ka waran bal ka waran, bal isbarbar dhig, hubiyaa lagu dhahay. midda shanaad, waayaha maxamed gacal xaayow waxaa ka maqan ayaa lagu dhahay. xog ay ahayd in la qoro laakiin aan lahayn, lama qorin oo ka maqan. raadi meelaha xogtu ka maqan yihiin, isla kolkaasna soo hel xogta ka maqan. haya bal fiiri, marka sheekada hadda aan akhrino iyo xiisadii hore tii eed oo sayid maxamed cabdullahi xasan marka aan akhrino, labadooda bal wax ay ku kala duwan yihiin raadi. waa qoyska midda ku saabsan. sayid maxamed markii laga soo sheekeynayay
waxaa la sheegay waxyaalo badanaa la sheegay awowgiisa laga soo sheekeeyey aabihiis meesha uu ku dhashay hooyadiis magaceedii qoyskooda markii ay soo guureen markii halkaas ay tageen waxbarashadiisii meesha uu ka bilaabay dugsigii ugu horeeyey diinta sida uu ku bartay xertii uu ka tirsanay sayid maxamed taasaa la sheegay soo ma laakiin ninkan la yidhahda maxamed gacal xayow maaragtay qaar ayaa laga gudbay marka adiga soo hel adigaa lagu diraya waxa looga sheekada looga gudbay maxay tahay mataqaan adigaa la rabaa meesha wax ka dhiman yihiin iyo meesha kale inaad fahamto haye waxaa lagu dhahay haddana qor qof tagto weyn leh waayihii uu soo maray waxaad qortaa ood wax ka qortaa qof tagto weyn leh yacni taariikh hore oo weyn oo qiimo leh qof maaragtay soo maray oo aad taqaano bal wax ka qoraa lagu dhahay adiga sida haddana lakugu soo sheegay maxamed cabdalla xasan iyo maxamed gacal xaayow saasoo kale adna qof kaleeto oo soomaaliyeed maaragtay dooro ya markaa ka soo sheekay waqtiga marxaladihii iyo tuducyadu say ahaayeenna uga soo sheekay yacni adiga naftirkaaga inaad baratakaydo ayaa lagaa rabaa waa ka masalan ba waxaa doorataa axmed gurey oo kaleeto axmed gurey oo kaleeto masalan ba dooro ama qof kasta oo dadka soomaalida oo qiimaha leh adiga aad is leedahay ayaad maaragtay dooran kartaa qof oo caalamiya xataa waa dooran kartaa haddaad rabto bini aadan kaleeto waa kaasaa haye waxqabadka saddexaad fiiri waxaan akhrinayaa erayada aan casharka ku soo bartay tuulo maxaa la yidhaha waa deegaan yar oo ka kooban guryo xayn ah koox yar oo maaragtay oo guryo ah ya oo 2 ilaa 4 sekadood maaragtay 2 ilaa 4 sekadood oo iska soo horjeeda waa ka yacni maaragtay xaafadood buulo maxaa waaye waa magac kale oo loo yaqaano tuulada tuulo iyo buulo labadaana isku mid waaye deegaanada magacyadaas laga kala isticmaalaa daabiyad waxa waaye tuulo yar kuwaanay kasii yar tahay buulada iyo tuulada caadahay kasii yar tahay oo ugu badnaan ka kooban 6 guri meesha kuwii hore xaafado ay ka koobnaayeen tani waxay ka kooban tahay 6 guri ya ama 2 sekadood 2 xaafadood iyo waxaas oo iska soo horjeeda waa mid hadda aasaasantay meel yar haye dhaq maxaa waaye asalkiisu waa shaqo dhaq marka lagu dhahayo waa shaqo qabo tusaale aan fiiri weelka dhaq waa weelka ka shaqee xoolaha dhaq waa xoolaha ka shaqee qoyskaaga dhaqo waxa qoyskaaga daryeer waxay u baahnaayeen qabo waa ka diinta ka shaqee waxa waaye diinta faafi oo dadka bar dhaqan maxaa la yidhaha qaab nololeed bulsho ku soo shaqayn jirtay oo weli lagu dhaqmo marar badan aan soo marnay qamar aan dhaqan iyo hiddo iyo aan soo marnay mataqaanaa haye dhaqashana ka shaqaysasho ama maamulasho fal maxaa waaye wax aad samaysay sida socod seexasho fadhiisasho cunid iyo wixii lamid waa falkii waa ficilkii falashona maxaa waaye beer ka shaqaysasho oo kolka dhirta la beerayo oo dhulka la faagayo dhulka marka la qodayo oo geedihii la gooynayo oo beertii dhulkii la banaynayo la carragedinayo beer falashadu taas waaye jilaabana maxaa waaye waa kalluubayso ama kalluun dabo war hebelow sidee baahi ku haysaa badda ka soo jilaabo waxa waaye kalluun maaragtay raadso barqabo maxaa waaye wax daatay ama dagaal dhacay barkood qabo si loo badbaadiyo maxaa la yidhaahdaa caano daatay waa la barqabtaa caano daatay dabadoodaa la qabtaa ama waa la barqabtaa dhibaata markay dhacdo lama sii fiirsadee intaasaa lagu simaa waa la qabtaa si loo badbaado cubtan maxaa waaye waa xulasho ama doorasho waxaa kaloo la yidhaha dagaal nin kastaa ciidankiisii cubtay uu diyaarsaday cubtantuna soo ma taqaaniin ciyaarta oo la dhaho berigii hore maxaa la yidhaahdaa cub cir ciyaar la dhaho cub cir soo ma jirto marka saas waaye cubtu maxaa waaye wax si aad iyo aad loo buuxinayo barkimanka oo kale marka wax lagu shubayo ayaa lagu buuxinayo waxaa la dhahaa cubid ayaa la dhahaa haliyey waa qof door qof isagoo kale aanba maaragta la arkin oo qiimo badan oo nolosha iyo horumarka horseeda u ayaa waxaa la yidhaahdaa maaragtay haliyey ayaa la dhahaa waayahay maxaa soo haray waxqabadkii maaragtay waxqabadkii afaraad soo maahan waayahay waxaa soo haray waxqabadkii afaraad aye xisadeena kale ayaan maaragtay waxqabadka afaraad aan maaragtay insha allah aan ka bilaabanaynaa marka
waayahay aad iyo aad u mahadsantihiin jazaakum allahu khayran maanta xisadeena intaas ayay maaragtay inoogu eg tahay xisada kale waxaan ka bilaabi doonaa waxqabadka afaraad waadna mahadsantihiin